قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayal xilqadeennan waxaynu ku soo qaadan doonaa laba qiso oo midkoodna ina tusayso dhibkii uu fircoon muuse ku hayay iyo sidii uu dad ka mid ah ehelkiisa ugu adeegsan jiray, iyo qiso kale oo iyana inoo tilmaamaysa reer banu israa'iil qudhoodu dhibkii ay muuse ku hayeen iyo sidii ay ugu dheeleeli jireen. qisada koobaadna waa qisadii caanka ahayd ee ninkii la odhan jiray qaaruun bin yashab bin qaahis oo ay nebi muuse ilmaadeen ruma ahaayeen. muusena la odhan jiray muuse bin cimraan bin qaahis waxa uu ahaa wasiirka fircoon u qaabilsan arrimaha reer banu israa'iil. sida oo kalena waxa uu qaaruun ahaa maalqabeen weyn, waxaana la sheegaa in uu yaqaanay cilmiga kimistariga iyo aqoon kale, sidaa awgeedna uu si fudud u sameyn jiray dahabka iyo macdan kale. waana sababta uu u leeyahay marka uu qoomkiisii la hadlayay waxaan hantidan ku helay cilmi iyo karti. taariikhyahano kalena waxa ay sheegaan in isaga oo isticmaalaya awoodda fircoon uu hantidan baad iyo musuqmaasuq ku kasbaday. si kastaba ha ahaato qaaruun waxa uu ahaa nin taajir ah oo fircoon ay aada isugu xidhan yihiin, waxaana uu hore u ahaan jiray nin muslin ah oo diinta aada u yaqaana. sida la sheegayna yaraantiisii muuse ayaa soo barbaariyey maadaama oo uu ina adeerka yahay, diintana isaga ayaa soo baray. waxaana la sheegaa inuu qaaruun kitaabka towraadka ah uu ku akhrin jiray cod aada u macaan ilaa lagu naanaysay munawar. aakhirkiisa wuu gaaloobay oo diintii waa u ka baxay. sida aynu soo sheegnayba waxa uu qaaruun ahaa maalqabeen hantidiisu aanay cadad lahayn. sida uu eebba inoo sheegayna furayaasha khasnadihiisa oo qura ayay koox rag ah oo xoogag waaweynay u xilsaanaayeen inay qaadaan. bal ka waran dhegayse mafaadiixda sidaas u culuse khasnadaha ay furayaan inta ay leeg yihiin iyo weliba badnaanta maalka ku kaydsan khasnadahaas. maadaama oo uu qaaruun ahaa wasiirka u qaabilsan fircoon arrimaha reer banu israa'iil, waxa uu fircoon aada ugu cadaadiyey qaaruun arrinta nebinimada ee ay muuse iyo haaruun sheeganayaan inuu wax ka qabto. waxaana uu fircoon dhegaha ugu riday in haddii reer banu israa'iil rasuul laga dooranayo ninka xaqa u lehi uu yahay qaaruun, ee aanu ilaahay soo dirsadeen laba nin oo sabool ah oo marya calcoolan sita. waxa kale oo ay iska kaashadeen fircoon iyo qaabiil dhibka nebi muuse. had iyo goorna mu'aamarad ayay muuse u dhigi jireen. muuse oo maalin madal ilyartus qabatay ka khudbadaynaya oo dadka ku waaninaya cabsida ilaahay ayaa waxaa kusoo dhex dhacday gabadh barooranaysa oo ooyeysa. markiiba inta lagu yaacay dhankii gabadha ayay sheegtay iyada oo dhulka isla dhacaysa inuu xalay muuse faraxumeeyey. kadibna reer banu israa'iilkii quluubta adkaa markay arkeen sida ay gabadhu u ooyeyso dhulkana iskula dhacayso ayay muuse tuhmeen oo mar qura guux bilaabeen. nebi muusena inta uu weysaystay ayaa uu 2 ragcadood tukaday. kadibna gabadhii ayaa uu u yimi oo waa uu dhaariyey, waxaana uu weydiiyey cidda ku kaliiftay in ay beenta sheegto. waxaana ay gabadhii caddaysay inuu qaaruun lacag badan ku siiyey sida ay beentan u sheegi lahayd. muusena waa uu habaaray qaaruun. kadibna waxaa lagu yidhi muuse, dhulka amar muusow, isaga ayaa kaaga filnaanaya. ee fircoon iyo qaaruun markii ay mu'aamaradaasi u shaqayn weyday ayay isla afkarteen in muuse dadka raacay laga soo jeediyo oo xagga hantida laga maro. waxaana uu qaaruun diyaariyey dhoolatus ballaadhan oo uu hantidiisa oo dhan kusoo bandhigayo. si la mid ah sidii maalintii hore muuse oo madal dad ka wacdiyaya ayaa waxaa kusoo baxay qaaruun iyo hantidiisii oo guuraysa. dahabkiisii, dheemantiisii, fardihiisii, addoommadiisii iyo wax allaale waxay uu mood iyo nool haystay ayaa uu soo geliyey. qaaruun waxa uu isku soo taagay maryo cajiib ah oo qaali ah. addoommadiisu waxa ay xidhan yihiin xariir iyo dahab, xataa fardihiisa koorahoodu waxa ay ka samaysan yihiin dahab. kadibna waxa fallaadhihii cadceedu ku dhaceen dahabkii iyo macdantii qaaruun, waxaana ay sameeyeen dhalaal iyo kaah qurxoon oo bilic awgeed dadkii ay ku indhadharaandareen. muuse kuu dhegaysanayay wacdigiisuna mar qura ayay ka wada jeesteen oo ay daawadeen lana ashqaraareen hantidii qaaruun. muuse waxa uu habaaray qaaruun, waxaana uu ku amray inuu dhulku liqo. kadibna waxa la go-ay dhulkii oo marba sidii uu hiish u qarinayay ayaa uu aakhirkii ku hoobtay. waxaana ay ahayd qisadani mid dhinacyo badan inaga tusaysa dhibkii uu nebi muuse ka mutay fircoon iyo weliba ehelkiisii oo uu qaaruun ugu horeeyo. qisada labaad daawada waa qisada uu ilaahay noogu sheegay suuratu baqara ee ku saabsan saca. waxaa jiray nin taajir ah oo ka tirsanaa reer banu israa'iil. ninkani waxa uu ahaa goblan da-ah
waxaana dad u xigay inama uu adeer u yahay oo walaalkii dhalay. inamadii uu adeerka u ahaa waxa ay jeclaayeen inuu dhinto si ay u dhaxlaan, waxaana ay raagsan jireen geeridiisa. kadibna mid ka mid ah ayaaba habeen dilay, waxaana uu meydkiisii hordhigay guri uu leeyahay nin yuhuudi ah. subaxnimadii markii uu waagu baryey ayaa lagu soo kaakacay meydka meesha yaala. inankii uu adeerka u ahaana dhiila ayaa uu kiciyey oo waxa uu qabsaday ninkii uu meydku hor yaalay. arrintiina cirkaas ayay u baxday oo jiiq iyo jiq ayay isku noqdeen, jilibkii oo odaygu ka dhintay iyo jilibkii kale ee uu ka soo jeeday ninkii meydka la hordhigay, waxaana ay iskula tageen nebi muuse. waxa uu nebi muuse weydiiyey inuu jiro markhaati arkayay markii la dilayay odayga, waana la waayey markhaatigii. kadibna muuse ilaahay ayaa uu weydiiyey cidda ninka dishay. ilaahayna waxa uu ku amray in ay sac qalaan si loo ogaado. markii uu muuse ku amray in ay sac qalaan ayay ku jeesjeeseen oo ku qosleen, kuna yidhaahdeen war annagu sac kuma aanaan dirsane, ninkan noo sheeg ciddii dishay, mise waad nagu ciyaaraysaa muusow. waxaana uu muuse ugu dhaartay in aanu ku dheeldheelen kuna ciyaareen ee ay tahay amar ilaahay uu soo dejiyey, marka ay fuliyaanna la ogaanayo ciddii dishay saca. reer banu israa'iil waxa ay ahaayeen dad madax adag oo sacii la amray ma aysan qaline. nebigii waxa ay weydiiyeen su-aalo badan oo ku saabsan sifooyinka ay sacaasi leedahay, da-deeda iyo weliba qaabka ay u eg tahay, waxaana ay ku adkeeyeen muuse arrintii. ilaahayna iyaga ayaa uu ku adkeeyey oo waxa uu amray in ay qalaan sac leh sifooyin iyo tilmaamo aada u adag oo aan ciyaarahaas lagu soo helaynin. ibnu cabbaas waxa uu sheegay haddii ay markii la amray ay qali lahaayeen saca ugu soo sokeeya ama ugu fudud ay heli kari lahaayeen, su-aalana aanay weydiinin, inuu ilaahay muroodkooda u fulin lahaa. hase yeeshee ay iyagu isku adkeeyeen. waxa ay reer banu israa'iil guntiga u xidheen sidii sacaas loo heli lahaa. aakhirkiina iyaga oo dhibtooday dhul fara badanna maray ayaa ay ka heleen nin xoolo dhaqato ah. waxa ay ninkii u bandhigeen inuu ka iibiyo, isna waa uu ka diiday. markaas ayay haddana usoo bandhigeen in ay saca culayskiisa dahab leeg ay uu kaga iibiyo, isagiina waa uu diiday. aakhirkiina waxa uu kaga iibiyey saca culayskiisa oo 10 jeer la jibaaray dahab leeg. kadibna waa ay gowraceen saci iyaga oo weli u haysta in ay tahay dheeldheel. waxa uu muuse ku amray qayb ka mid ah hilibkii saca in ay ku dhuftaan meydkii. markii lagu dhuftayna waaba uu soo noolaaday, waxaana uu muuse weydiiyey cidda dishay. markaasuu u sheegay odaygii inuu dilay inanka uu adeerka u yahay. kadibna waa uu dhintay oo meydnimadiisi ayaa uu ku noqday. arrintanina waxa ay ahayd aayad kale oo uu eebba tusaayey, taas oo caddayn u ah inuu wax kastaba soo noolayn karo. waxaana ay reer banu israa'iil ahaayeen duul dhigo adag oo su-aalo badan, waana kuwii muuse weydiiyey cidda dunida ugu cilmiga badan leh. kadibna ay dhacday qisadii khadar ee caanka ahayd, intiina badanina aada wada garanaysaan. daawadayaal, fari kama qodno taariikhda reer banu israa'iil. waxay noo soo socdaa taariikho la yaab leh, qisooyin cajiiba iyo dhacdooyin taariikhda ku ugub ah. insha allah xilqadaheena dambe oo aynu si joogtaa usoo gelin doonaa ayaynu kaga bagan doonaa. idinkuna la soo cosho wanaagsan.